Waa sanadkii 6aad ee hijriyada ka hor, goobtuna waa magaalada Maka. Wuxuu Rasuulku sallallahu alayhi wasallam ka sheeganayay dhibaatooyinkii iyo hagardaamooyinkii kaga imaanayay gaaladii Quraysh isaga iyo asxaabtiisa, isagoo Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waqtigaasna ku howlnaa gaarsiinta iyo fidinta dacwada Islaamka. Waxaa u yimid qof ugu bishaareynayay inay Ummu Ayman ay dhashay wiil. Dhalashada wiilkaasi ayaa waxaa si aad ah ugu farxay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, iyadoo ay wejigiisana ay si weyn u hareereysay farxaddaasi. Talow yuu noqon doonaa wiilkaas nasiibka badan ee dhalashadiisa uu ku farxay Nabiga, nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Haddaba wiilkaasi waa saxaabiga aynu soo bandhigayno sheekadiisa. Waa saxaabiga la yiraahdo Usaama bin Zayd ee loogu magac dari jiray kii uu jeclaa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Asxaabta lama aysan yaabin sirta ka dambeysa ee keentay inuu ku farxo dhalashadiisa, maxaa yeelay waxay ogaayeen xiriirka qotada dheer ee uu Rasuulka sallallahu alayhi wasallam la wadaagay waalidka Usaama. Usaama hooyadiis waxaa la yiraahdaa Barakatu al-Xabasha, waxaana loogu kunyoodaa oo lagu naanaysaa Ummu Ayman. Ummu Ayman waxay adoon u ahayd Aamina bint Wahab oo ahayd Rasuulka sallallahu alayhi wasallam hooyadiis. Kolkii ay dhimatayna, hooyadiisa waxaa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam barbaariyay Ummu Ayman, iyadoo wanaajisay xanaaneynta Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Sidaa darteed, qadarin iyo maamuus aad u weyn ayuu Rasuulka sallallahu alayhi wasallam u hayay Ummu Ayman. Aad iyo aad ayuu u jeclaa, wuxuu u ixtiraami jiray sida inay dhashay oo kale oo ay tahay hooyadiis. Wuxuu Rasuulka sallallahu alayhi wasallam inta badan oran jiray, Ummu Ayman waa hooyaday marka laga reebo hooyaday kadib. Waa taa hooyadii sharafta badnayd ee dhashay wiilkii nasiibka badnaa ee uu ku farxay dhalashadiisa, Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Haddaba aabihii Usaama waa saxaabigii sidoo kale uu aadka u jeclaa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo la oran jiray Zayd bin Xaarith. Sidoo kalena aabihiisa waxaa lagu magac dari jiray Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka hor inta uusan imaan Islaamka. Dhinaca kale, Zayd waxa uu ka mid ahaa xogayaanadii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee uu sirihiisa ku qarsan jiray. Asxaabtii waxay uga magac dareen Usaama magacan wiilkii la jeclaa ee uu dhalay kii isna la jeclaa. Ilaahay ha ka raali noqday. Usaama wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii ugu da'da yaraa, waxayna isku ahaayeen wiilkii uu awowga u ahaa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee la oran jiray Xasan, ayna dhashay Faatima bint Rasuulillaah. Sanadkii 11aad ee hijriyada wuxuu Rasuulka sallallahu alayhi wasallam amar ku bixiyay in ciidan loo diyaariyo ciidankii Roomaanka ee uu hogaaminayay Hiraqle. Wuxuuna ciidankaasi ku daray rugcadayaashii saxaabada Abubakar, Cumar, Sacad bin Abi Waqqaas, Abu Cubayda bin Jaraax iyo saxaabo kale oo fara badan. Wuxuuse Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ciidankaasi madax uga dhigay wiilkii xikmadda iyo caqliga badnaa ee Usaama bin Zayd. Xilligaas iyada ah da'diisu ma aysan dhaafin 20 jir. Ciidankii oo ku jiray diyaarinta ayaa waxaa xanuunsaday Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, uuna sii kordhay xanuunkii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam hayay. Sidaa darteed waxay dib u dhigeen duulimaadkii ciidanka, iyagoo doonayay inay ka war doonaan xaaladda uu ku dambeyn doono Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Muddo kadib waxay dib ugu soo laabteen dagaalkii. Ciidankii uu hogaaminayay Usaama bin Zayd ayaa soo kactimay, wuxuuna Usaama fuliyay dardaarankii uu faray Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Fardihii ay muslimiinta wateen waxay cagta mariyeen magaalooyinka Balkha ee ka tirsanaa Falastiin iyo sidoo kale qalcadda lagu magacaabo Al-Daaruumi oo iyadana ka tirsan Falastiin. Sanadkii 14aad ee hijriyada wuxuu Usaama isagoo aad ugu hilowsan u dheelmaday la kulanka Eebbe subxaanahu wa tacaala, sidaas ayuuna ku geeriyooday. Ugu dambeyntii waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u naxariisto kana raali noqdo Usaama. Taariikhda Islaamka way ku yareed in la helo qof kulansaday sifooyinka suubanaa ee uu lahaa Usaama bin Zayd.